madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Caagjar oo ku sugan degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ayaa kulan la qaatay odayaasha salaadiinta xuqaasha madax dhaqameedka ka soo jeeda degmada Gaashaamo kulankan ay salaadiinta xuqaasha iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda degmada Gaashaamo ay la yeesheen madaxweynaha ayay kala hadleen baahiyaha asaasiga ee ka jira degmada Gaashaamo iyo deegaanada hoos yimaada ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay madax dhaqameed salaadiin xuqaal iyo Dr. Maxamed Cabdi Gaboos oo ka warramay baahiyaha asaasiga ee ka taagan degmada Gaashaamo baahida degmadu way fara badan tahay waxa anaga marka ugu horeysan noo daran in aanu helo sida dadka kale deegaanka Soomaalida ku dhaqan wixii ay heleen oo ah qaab dhismeedka dawliga in loo ballaariyo in sida degmada Awaare shanta degmo ay u noqotay aanu shan degmo helo iyo lix degmoba waxaanu codsanaynaa inaanu helo gobol ka go'a gobolka Jarar in aad noogu hawl gashaan adiga iyo kaabineedkaaga golahaaga wasiirada guddiga xisbiga taasaanu codsanaynaa halkan cusbitaal baa ah in la furaabaanu doonaynaa dhaqaatiirtii la keeno qalabkiina loo dhammaystiraabaan rabnaa waxaan codsanaynaa baahida jirta ee kala biyaha ceelashii degmada laga qoday badi way u fadhiyaan dadkii ilaahayna waa isku soo guuray in loo furo ceelasha oo ay ka faa'iidaystaan dadku madaxweyne codsanaynaa waxaanu codsanaynaa hay-adihii deegaankan joogi jiray hal hay-adi ma joogto hay-adihii wax ka qaban jiray horumarinta in la keenaabaan codsanaynaa laakiin wadadan la soo marteen dadku markay kari waayeen inay jigjigiyo idinku yimaadaan iyo caasimadoodii Soomaaliland bay qabtaan marka dhibaato ku timaado ama qof xanuunsado ama mashaakil kala yimaado ay qofku intaas oo 100 kilomitir oo rafar ma mari karo wadada waxaanu codsanaynaa in wadadaas sida ugu dhaqsaha badan looga hawlgalo madaxweyne ka codsanaynaa qalbi furan iyo xushmad badan oo tii ummadiisu timiisu harayso ay ku dheehan tahay in waxaan ku soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanahay oo u haynaa madaxweynaha deegaanka ismaamulka deegaanka Soomaalida aynu ku soo dhaweynay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad baanu madaxweynaha iyo waftigiisa uu hogaaminayo u soo dhaweynaynaa ugu faraxsanahay wax la bogaadiyo wax qiimo iyo sharaf loo yeelo waxa weeye madaxweyne go'aansaday dariiqa ugu wanaagsan ee maamulkiisu miradhal ku noqon karo ee dalkiisu horumar ku gaari karo inay tahay si toosa inuu ummadda xiriir isagu u leeyahay inuu tuulo walbaba waxay ku seexatay garanayo tan habeenkii mugdiga garanayo tan degmo la'aanta xaq u la garanayo madaxweyne waa lagu sheegay magaalada waqti dhow waa dam layr ma leh oo aad arkaysaa ceelasha kuwa cusub mooyaane kuwa hore jiray oo maartay xumaaday oo abaarta maartay la doonayo inaad maartay kicisid waxa kale oo jira xadka wax weyn baad ka qabatay waxaan ogaa xad xiran oo balaayo fadhido oo walaalkay oo 2 mitir jira aanan arki karin maanta waxaan kugu hambalyeeynaa wax lagu farxaa inuu xadka aan halkan Gaashaamo geel badan bay joogo wali ma oran waa kan gudoomiyuhu maqlayaa waraaqisi iyo taanaysi horan ka soo gala waa madaxweynaha sababtiisa weeye Soomaaliya soo goolma waxaan kula sii talinayaa inuu xadka arintiisa ku darsado sidii ganacsiga wada jirka walaaltinimada uu xoojin lahaa mudane Mustafa Maxamed Caagjar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa isaguna dhakiisa ka jawaabay baahiyaha waqti xaadirkani ka taagan degmada Gaashaamo baahiyaha ka hadasheen waxa nasiib wanaaga badankooda inaan hadda halkan ballan qaadaynahay aan oran karno wax qabadkoodu isagoo mudaysan ma sheegi karnaa waxa kamida waxa in badan laga cabanayaa aagan jidka halkan iyo caasimadda isku xidha jidkaas waa la bilaabay ilaa ay xarshin 60% uu soo dhamaaday intii ka dhinaydna waa soo dhignay 230 milyan lacag ku dhawaada yaa loo diyaariyay laakiin halka maana ku deeynin jid kale oo laamiya oo standard fiican oo standardka wajaale jidkiisoo kala ayaan ka dalbanay dowladda federaalka jidkii aan dalbanay jidka ugu horeeya ee hadii tobanka jid ee la sameeyo mid kaliya laga soo reebo leeyahay aan xukuumadda isla qaadanay waa jidka arrimaha kale ee ka hadashay waxa kamid ah arinta leydka meeshan waa degmo weyn oo degmo qadiimi ah sida aad sheegteen generator si degdeg ah in la keeno inta leydka 24 saac ee wadada soo gaari doona arinta biyaha wasaaradda way nala socotaa laba qaybood weey ceelashi way qaarkood ay dhameystireen ilaa 5 ceel qaar cusub hadda la sameeyay qaar hore in dadka loo furay ka cabaan hada waa la amray tiimka halkan jooga hadda shaqada wadaan inay hawsha qabtaan oo dadka ay cabaan laakiin arinta biyo gelinta halkan la soo geeyo waxaan maray madraska tiimku ay qaateen wuxuu ahaa ilaa 4 bilood inay ku dhameeyaan
biyagelinta magaalada taas dhanka miisaaniyadda wixii looga baahan yahay waan diyaarinaynaa gaashaamo meelaha markaa development centerska noqonaya inay kow ka noqoto waan ku fikiraynaa ka hadasheen la xidhiidha saabi qaybsiga iyo matalaadda qaaranka waxyaalaha ka garowsanahayna way jiraan waxyaalo aan isleenahay qaabka bulshadu u fahansan tahay qaab suuragalana ma jiraan mid maahana way jiraan kaabinega iyo wasiirada deegaanku waxaa laga yaabaa 30 inay yihiin qabaa'ilada deegaanka jooga korka laga qabto 38 bay gaarayaan ka badan yihiin marka hoos loo sii daadegana 100 xoog ay gaarayaan kuraasta meesha taala marka matalaad ahaan in dadku ay ka dhex muuqdaan baa loo jeedaa mooye macnaha meeshu maaha miisaankay kale leeyihiin baa loo qaybinaya waxaan kaloo idinku ammaanayaa kaalinta aad ka ciyaarteen adkaynta nabadgelyada 27 sano ee deegaanku u jiray aaggan wuxuu ahaa aag nabdoon dadku ku nabadgalaan isagoo xuduuda walbahaar badan xukuumadda dalka iyo deegaanka midna ku haynin taana inaad hadda sii xoojisaan furfuraantan iyo dimuqraadiyadda gabagabadiina waxaa halkaasi shahaada sharafyo kala duwan lagu guddoonsiiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka Saab degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar.